waxa laga yaabaa dadka badinay isleeyiin oo ma adigu ma cilmi badan baad leeyahay oo yaa cilmi kale ku weydiiyay tawxiidka soo ma taqaanid waxa lagu islaamo kalimatu tawxiid iyo salaad iyo arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan qofka waxa loo sheegayaa waa kaasi falsafad iyo cilmi kale looma akhrinayo waxa loo akhrinayaa waa inuu islaamo waxa laga yaabaa inaad tiraahdo afkaanan garanaynin quraanku wuxuu inooga warramayaa midaan dadka af garanayno dadka islaamiyay sabab ugu ahaa inay islaamaan qof muslim oo shimbir ka Itaaliyar ma jira quraanku wuxuu ka warramayaa shimbir sababtay in ummad dhame ay islaamto mac boqoradoodii ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu kaga warramayaa shimbir hudhud la yiraahdo culimada Soomaaliyeed waxay oran jireen waa guuguule shimbirka hudhudka la yiraahdo ma guuguulaha nabi Sulaymaan ciidan badan buu watay afaf badanna wuu yaqaanay maalin maalma kamid oo ciidankiisii xaadiriyay buu wuxuu waayay guuguule kamid ahaa ciidankiisii dabeetana wuxuu yiri guuguulahaasi ama cudurdaar buu la iman hadii kale in la cadaabayo in la gowraco mid un bay noqon waa la ciqaabaya guuguulihii wuu soo noqdaa wuxuu yiri ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin nabi Sulaymaan waa ahattu bima lam tuhit bihi waraanad koobin baan soo koobay buu leeyahay aqoon baan hayaa war waxaan ka imi buu yiri Saba meesha la yiraahdo waa Yaman waxaanan ka keenay buu leeyahay naba yaqiin ah war dhab abaan kala imi Saba waa maxay warku wada inni wajadtu imra'atan tamlikuhum waxaan soo helay buu leeyahay duul gabadhay xukunto wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun 'azim gabadhaasi wax kasto boqortooyo u baahnayd waa la siiyay kursi weyn oo sariir boqortooyada waa haysatay oo haduu soo arkay dawlad meel ka dhisan maxaa ku jaban waa kan waxa ku jaban wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishams waxaan soo helay buu leeyahay iyada iyo tolkeed oo cadceed caabuda ilaahi sokadi oo shaytaan uu jidkii alle ka weeciyay oo lunsan baa soo helay buu leeyahay iimaana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin waraqa inta ku qortay buu dhaqaaq waraqdii baa loo geeyay qisada maxaan uga jeedaa natiija waa maxay qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaymaan lillahi rabbil alamin natiijadu waa maxay hudhud ayaa wuxuu sababay in ay boqortooyadani islaamto ay tiraahdo inni dhalamtu nafsi ilaahay oo naftayda waa dulmiyay wa aslamtu ma'a Sulaymaan lillahi rabbil alamin hudhudku shaqadu qabtay waa maxay wuxuu gartay isaga iyo qoladan inaanay safgaranaynin xataa haduu tawxiidka u sheegi lahaa dan maxaa xal ah waxa xal ah wuxuu dunida ku og yahay cid ay safgaranayaan oo ay safgaranayaan quraanku waa ka tilmaamaya inuu nabi Sulaymaan lahaa ya ayuha naasu ulimna mantiqa at-tayr nabi Sulaymaan khudbadiisa waxa kamid ahayd dada waxa nala baray af shimbiraadka nabi Sulaymaan af shimbiraadku yaqaan hudhudku markaasi wuxuu gartay inuu isagu risaalo xambaari karo ah warkan intuu qaado cid shaqadan qaban karta inuu gaarsiiyo isagana afgaranaysa qoladana afgaranaysa tawxiidkana sharxi karaysa qof muslimaan shaqada qaban karin ma jira hatta hadaanad afgaranaynin dadka daacad noqon kartaa dadka diinta waad gaarsiin kartaa maadaama shimbiriba uu ku guuleystay inuu bulshadan islaamiyo waxaan leenahay ikhwati fil aqeeda waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan meesha culuma joogto oo wadaada jooga oo hebel iyo hebel baa jooga dad diinta sheegaya jooga war waxa mas'uuliyadu kuma dhacdo waayo quraanku wuxuu ka warramayaa magaalo saddex rasuul diiday saddex rasuul magaalo diiday oo hadana niman saddexda rasuul ba ahayn uu diin sheegayo wadrib lahum mathalan ashab alqarya إذ جاءها المرسلون dadka waxaad u sheegtaa baa la leeyahay subhanahu wa ta'ala tusaale wadhigta magaaladii saddexda rasuul ay yimaadeen ee arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azazna bithalith faqalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna ilaahi wuxuu ka warramayaa subhanahu wa ta'ala magaala rasuul loo diray markaasay beenisay markaas mid kale loo diray markaasay beenisay markaas mid saddexaad loo diray haddaad soo gasho magaalo saddex rasuul diiday maxaad sameyn lahayd رسول شريعة من النبي كله صادر منذرين هذا سام مفسرين تقارقبان أما رسول الله هذا حق الرب كاتبين
magaalo saddex caalim oo ka waaweyn ay joogaan oo saddexdaba la diiday ama saddex rasuul oo ilaahay soo diray joogto oo waxba laga dhageysan waayo hadaad joogto adigu maxaad yeeli lahayd halka yaabana istiraahada shaqadii rasuulshaba laga diiday adiga maxaa ku yaala laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa dhaqanka qofka muslimka siduu yahay wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ibn hubayra wasiirkii la oran jiray caalimka haba wuxuu leeyahay qisadan yaabkeeda waxa kamida buu yiri ninkan markii alla sifaynayay laguma sifaynin nin cilmi leh ama waxba laguma sheegin waxa lagu sheego qura maxay wajaa rajul inuu yimi xagee ka yimi wajaa min aqsa almadinati rajul ka waxa la tilmaamay muu ahay nin xaadiro meelahan culimada ama rususha lagu diiday joogay magaalada dacalkeedu joogay aqsa almadina buu ka yimi wuxuu kaloo quraanku tilmaamaya yas'a warku markii uu soo gaadhay in rusushii la diiday ayuu magaalada dacalkeeda ka yimi waliba isagoo ordaya la leeyo rooraya oo raba shaqada inuu dhaqso u qabto markuu yimina muxuu sameeyay yaa qawmi ittabi'u al-mursaliin bulay janb ar-rusul buu ka hadlaya wuxuu leeyahay yaa qawm ittabi'u al-mursaliin wartalkayo rasuulada raaca waayo laba sababood ba ku raaca bulay ittabi'u man la yasalukum ajran raaca midaan ajar idin weydiisanin ajarku waa maxay waa midaan magac maamuus lacag siyaasad waxba ka doonaynin qofka bini aadamka hadduu dareemo inaad dantiisa ku kacsanayso inta badan wax ma aqbalo waayo waxaanaad sheegayso gadaasheeda wuxuu ka akhrinayaa wax kale oo ku qoran oo ayna danahaaga adigu dee wadato in adigu business kuugu jiro ayuu dareemaya laakiin quraanku markuu rususha ka warramay fi suurati shu'ara nabi kasta slogan iska anbiyadu sideen ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ba kamida ilahi kaligii la caabudo maxaa kale nabi kasta la laha ku dadka qul la asalukum wax ajra idin ma weydiisanayo ku dhabala laha rususha waxa la leeyahay dawaa rasuulka ilaahay soo diray dadka waxaad u cadeysaan ma asalukum alayhi min ajr xoolo idin kama doonayo ku dhaha idan wuxuu leeyahay ninka kani war marka koowaad waxa raacdaan cid aan dan idin kala hayn inay diinta ilaahay idin gaarsiiso mooyaane marka labaadna maxay ah wahum muhtadun iyagu hanuunsan quraanku wuxuu inooga warramayaa laba rasuul hadaynu kuwii hore xataa culimada tafsiirka qaadano quraanku wuxuu ka warramayaa laba rasuul oo talkood la jooga oo ilaahay gacantooda ku soo badbaadiyay oo haddana la beeniyay oo niman kale ka dhinac hadlayaan oo leeyahay war rususha la raaco إلهي قرآن كوحكت المامي قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما نبي موسى هي نبي الله هارون غير بنو إسرائيل بالله صادره غير بنو إسرائيل دلي إيو أدون سباي كسو صاره إلهي سبحانه وتعالى بضبوك لتشيحي فرعون يكوح دي بالله هلاقي لكن وهلكو قبل أما جهادكم أول جهاد لفراقهم كم بيهايه waxa lagu yiri Soomaa arkaysaan in Ilaahay inta soo halaagay idinka hadaba waxa idin saaran in jihaatantaan oo Baytul Maqdis gashaan oo jawaabirada ku jira ka saartaan udkhulu al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allah lakum dhulka alla idin qoray baa la yiri gala waxay yiraahdeen anagu galimayna hadii ay ka baxaan baanu galaynaa markii lagu adkeeyna waxay yiraahdeen adiga iyo rabbiga dagaalama adiga iyo rabbiga nabi Muuse u dagaalama innaha huna qaacidun annagu halkaanu sii fadheenaye fircoon ba ilaahay aada u bariyo gacantaada lagu burburiyay qoladanna adiga iyo rabbiga isku dayaba yiri annagu waa sii joogeynaa laba rasuul baa la diiday markaas oo wacdi dhan waday markii la diiday ilaahay quraanka wuxuu ku sifeynaya laba nin oo kale aan rasuul ahayn oo waa maxay قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما قال رجلان وحصفه كلا لما سعته مجرد رجلان بلغوا سفيه لكن محل الراعي من الذين يخافون أنعم الله عليهما لمن وكوا الله كعبسنا يكمله وإلهي سبحانه وتعالى كن نعمة استجيس النما يرجع النما يكلاديك أي وحي كوي راهدين ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وراء الباب كوجلا اسكتوا مدح وجلا هذا أساس ما يسان إلا نقول كإلهي بايدين قرية قرآن كهلا يدين كل شيء جيه
quraanku wuxuu inoo sheegayaa al-ardu allati kataba Allah waxa lagu yiri gala qisada dhan waxaan uga jeedaa waa laba nin oo laba rasuul oo la beeniyay ka dhinac hadlaya waxaan ku soo koobayaa dariska dhamaantii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam goorma rasuul laga dhigay markiisa rasuul laga dhigay imisu xambaarsana iqra bismi rabbika alladhi khalaq wa maxay wa nabinimadii rasuulnimadana culimadu waxay yiraahdaan yaa ayuhal mudathiru qum faanzir ka oo dig baa la yiri kan istuudubayo qum faanzir markii la yiri cilmi inta leeg ba ku soo degay yani waxaynu oran karnaa waxoogaa ru'yada ku arkay iyo labada aayadood quraanka baa la tilmaamay waxaan ku soo koobaya markaa wuxuu yahay qof muslima oo aan diintan sheegi karin oo dad gaarsiin karin ma jiro laakiin waxa laga rabaa waxaad garanaysaa inaad gaarsiiso nabigu wuxuu yiri ballighu anni wala waaya ballighu ma shiitum lama oran ballighu anni uu ku yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam aniga wixii aan keenay dadka iga gaarsiiya laakiin waxa uu keenay dadka la gaarsiinaya waa maxay kutub akhriba hal aayadna ha noqotee faatixadu hadaba 7 aayadood mid kamid ah faatixadana ha noqotee dadka gaarsiin baa la yiri idan waxaan ku soo koobayaa dariska kani dantan kale iyo dhami waa hal mas'alo ah war ma dareena mas'uuliyadda inay diintan mas'uuliyadda inaga saaran tahay